maalinba maalinta ka dambaysa waxa isa soo taraya kufsi wadareedka loo geysanayo hablaha Soomaaliyeed taasoo dadka Soomaaliyeed argagax weyn ku beertay haddaba shacabka gobolka Karkaar ee magaalada Qardho ayaa si kulul uga hadlay kufsiyadii ugu dambeeyay ee ka dhacay gobolada Puntland waxaana ay ugu baaqeen madaxweynaha dawladda Puntland Siciid Cabdullaahi Deni inuu tallaabo adag ka qaado dadkii geystay dambiyada kufsi wadareedkana la soo hortaago maxkamad isla markaana lagu xukumo dil kufsi wadareedka ama kufsiba waa wax diinta Ilaahay xaraamaysay oo xaraana Soomaaliduna dhaqan badan uma lahayn waxaan u maleynayaa wixii dhici jiray 10 sano 20 sano mar dhici jirtay hadda waayadan dambe waxa soo badiyay oo gabdhii hadee la isaga baabi'inayo kufsi wadareed loogu sameeynayo iyadoo kufsiga xataa qof kaliya uu xaraan yahay waxa loogu sameeyay waxa way horta wadankeena sharciga baa burburay dawlad baynu ahayn qofka waa la ciqaabi jiray ama mid madani hal la saaro ama mid mataqaana sharcigeena islaamka hal la saare gabadhii markii la kufsado oo 10 nin kufsato oo waliba hadda faaxish baa lagu daray laga duubo film laga duubo oo meediyada lagu baahiyo waa wax crime ah oo dil ah wax ku xuntahay dil qofku inuu dhinto baa u roon iyo waxa in lagu sameeyo nimankii maxkamadaha jooga wadaadada ma isticmaalayaan xukunkii Ilaahay sameeyay muxuu ahaayay ama oday iyo odayaasha way soo imaanayo inta maxkamadda la yimaado goortii wiilka la xiro waxa leeyahay idinkan xoogaageena qaata anagana isu kaayadaay iyaga markaa hesheenayo ma taqaana lacag kala qaadanaya waxa laga yaabaa xataa habartii gabadha dhashay inay lacagti wax ka helin ina gabadhii lagu daaweyn baa suura gala odayga meeshu rabo kala baxo soo iska qaato balorta cadaaladda in maxkamadaha in dib loogu noqdo oo revision lagu sameeyo oo dib looga bedelo dadka jooga oo dad aqoon leh oo Ilaahay yaqaan oo Ilaah ka baqay la keeno qofkii waxa ku kaca oo sahlana ma taqaana oo ruuxiisa maxkamad la saaro talabaad waxa madaxweynaha cid kasta waxaan ka codsanaynaa madaxweynuhu kufsi wadareedkaas sharciga diinta islaamka uu waafajiyo rin fawaaxisha in gabdhaha yaryar ama iyo kuwa waaweynba in dumarka la kufsado oo kufsi wadareed wax la yiraahdo ayaaba hadda soo baxay awal kufsigaasaaba ceeb ahaa oo wuxuu ahaa wax fawaaxisha haddaan sharci adag laga dhigan oo dadku ay sharci adag ka sameyn oo aan sharciga la fulin waxa weeye hawshaanu dhamaanayso ma doonayno in xaal Soomaali lagu xaalo oo odayaal iyo waxa sidii arintii ka dhacday galdogob gabadhii lagu faraxumeeyay oo 6 bilood iyo waxaan macna lahayn lagu xukumay weelshii waa in talaabo adag oo dadku ka shalaayaan oo aan loo noqon oo ay muxuu ka cararaan intaas oo kale dhacdo dadku waa in la sameeyaa madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni waa nimaanaqaan waa nin ikhlaaqayaadka iyo muxuu ahaa dhaqan suuban leh waa nin milgada iyo sharafta Soomaaliyeed jecel inuu ilaaliyo waxaan oran lahaa isaguna waa ku dhawaaqay in dadkaas talaabo adag laga qaado waxa weeyaan kufsi wadareed waxa weeyaan waa jariimo xun weeye waxaanu naqeena maaha marka waxa weeyaan waxaan horta waxaan koos gareynaya waa daraag baan anu isleeyahay daraag baa dalka soo gala daraagaas koos gareynaya waa biliiska iyo maxkamadaha iyo dawladdu waa inay talaabo cad ka qaadaan shariicada islaamka lagu qaada shanadayn iyo 10 yihiinba waa in dhagax lagu dilaa waxaan isleenahay maxkamadaha waan lagu adkeeyaa madaxdu waa inay talaabo cad ka qaada waa inay meel uga soo wada jansa aan naxariis loo gelin waxa igu soo dhacaya dhibaato aan caadi ahayn oo Puntland haysata oo ay madaxu tahay fulin la'aan oo garsoorkii oo kaalintiisa gabay oo dadkii oo aad moodayso inaanay u jeedin waxa ay u dhaarteen iyo waxa ay mas'uulka ka yihiin waxa loo dhaarto waxa mas'uulka laga yahay waa annaga rayidka ma aha dad waaweyn oo xoog leh oo dadka leynaya ma aha in mas'uul laga yahay waxa mas'uul laga yahay dadka maatada ah oo caruurta ah oo dumarka ah oo aan itaalka lahayn dadka weeye dadka mas'uulka laga yahay waxaan Puntland ka codsanayaa dadka mas'uuliyadda
ay saaran tahay inay xaaladaha iyo wixii la mid ah wax ka qabtaan. waxaanu leenahay odayaasha nabadoonnada waxgaradka aqoon-yahanada dadka dhibaatadu taabato islaamka damiirka leh waxaan leenahay arrintaas culimada kulli arrintaa in la iska arko oo nimankaa waajibka ay leeyihiin say gabadhaa u dileen iyo si koose si ka daran loo dilo oo bulshada horteeda lagu dilo oo shareecadda islaamka la mariyo oo kitaabku wuxuu arrintaa ka qaba naloo horkeeno oo nala qanciyo arrintaas aad iyo aad baan ugu qanxunnay in nala qanciyaan rabnaataan haweenka Soomaaliyeed ama haweenka Puntland ama haweenka gobolka Karkaar anigoo ku hadlaaya magacooda gobolka Karkaar haweenka magacooda ku hadlaaya waxaan rabnaa arrintaas waajibka ay leeyihiin nimanka in loo mariyo meel shaarica oo fagaaraan naloo keeno shantii nin waxaanu maqalnay oo aanu aragnay dalooyinka ka aragnay in diltooga shaa lagu xukumay iyagu kuwa kan waaba ka sii dambi badan yihiin gabadha tan waa la googooyey waa la hilbeeyey waa dhimatay gabadhaan mawd waxaan rabnaa shareecadaas islaamka oo nimankaa xukuntay mid la mid ah nimankaa noo xukunto oo nimankaas loo keeno maxkamaddii nimankaa xukuntay in loo ku keeno. Xiyadiin Hiirad Kaatun, telefishinka SomNews, magaalada Qardho.